fadlan subscribe dhe gambaleelka furo ku xidhnow Togayo Media Group. siyaasaduna runtii mucaarad iyo maxaafid way leedahay madaxdii hore ay sii joogtay mucaarad waa lahayd madaxdan hadda xukunka joogtana mucaarad badan ay leedahay marka waa la ismu mucaaradi karaa waxa la isku mucaaradayna wax kala ma waxa waaye afkaar dadku isku fikir ma noqon karaan wala kala afkaar duwan kara laakiin afkaarta laftigooda in loo adeegsado qaab runtii wanaagsan oo dalka iyo dadka aan amni darro iyo khalkhal gelin karin in loo adeegsado aragtida laftigeeda way haboon tahay oo si nabadeed aragtida iyo fikirka la isla wadaago anagu muhiimadda meesha taala aan u socono waxa waaye aan xisbiyada u hogaaminaynaa in aan aragno ummadeena Soomaaliyeed shacabkeena Soomaaliyeed inay maalin cod u dareeraan codkooda ay dhiibtaan cid iyaga matalayana ay codkooda ku doortaan doorasho qof iyo codana waxa caafimaad iyo dawo ugu jirta waxa waaye qarankeena dawo ugu jirta quruxda dalkeena iyo horumarkeena dan ugu jirta ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed oo cadaalad darrada iyo dulmiga ka baxda buu xalka ugu jira maxaa yeelay marka xildhibaanka baarlamaanka ku fadhiya gobolka uu ka soo jeedo laga soo doorto shacabku soo doortaan iyo marka hal qof uu saxeexo ama madaxweyne state uu go'aamiyo xildhibaankaas way kala duwan tahay way kala xisaab duwan tahay nin shacabku soo doortay waa nin laga filan karo wax qabad iyo horumar laga filan karo nin shakhsi soo saxeexayna waxa laga filan karaa inuu shakhsigaas aragtidiisa ugu adeego marka farqi weyn u dhaxeeya marka waxaan rajaynaynaa ummadan xalkooda ku jira waxa waaye in qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed dastuurka tilmaamaya xuquuqda koowaad oo qofku qaranka uu ku leeyahay dawladnimada ku leeyahay waa inuu codkiisa u dhiibto waay marka laga yimaado in qofka cashuurta waajibka ku bixiyo qarankiisa uu difaaco qarankiisa maaragtay garab istaago marka laga yimaado xuquuqda koowaad oo muwaadinku leeyahay waxa waaye waa inuu codkiisa uu wax ku doorto laguna doorto marka taasana dalku runtii u socda waxaan aaminsanahay go'aan kasto shirkaas in runtii lagula taliyo madaxdana inay wixii ummadda dan waa inay go'aan ka gaaraan maslaxada shakhsiyana laga tanaasulo oo masiirka guud ee ummadda Soomaaliyeed loo tanaasulo oo aan ma aragtay dana gaaro shakhsiya siyaasiyiin la yahay dabcan qof walba aragtiisa shakhsiga ka tagi maayo laakiin taariikha mataqaana wadankan u baahan tahay in taariikh looga tago taalooyinka dhisan iyo ma aragtay dhulkan arkayna rag baa soo maamulay soo dhisay oo runtii lagu xasuusanaya iyaga lafteedana waxaan rajaynaynaa in xasuus lagu xasuusto inay madaxdu ka tagaan dawlad goboleedyada waxaan leenahay shalay iyaga xisbiyada diidanaan xafiisyo deegaanada gobolada ay ka furtaan inaan hore u socono inaan dhaqdhaqaaq culus aan deegaanada isteediyada ka sameeyno madaxda dawlad goboleedyada diidanaa marka iyagana waxaan faraynaa in ay sida sharafta leh caasimada loogu soo dhaweeyay loo marti sooray loo wanaajiyay in iyaga laftigooda ay xisbiyada albaabada ugu furaan oo soo dhaweeyaan maxaa yeelay bulshada markay isdhex gasho siyaasadda iyo siyaasiyiintu isdhex galaan xisbiyada iyo isteediyadu isdhex galaan waxa laga yaabaa tuhunka shakiga ah la qabo inuu shakigu baxayo oo la isfahmi karo la isna aamini karo dalka Soomaaliyeed haddii ay go'aansadaan dad gaar ah inaan xisbi la aadinayo la aado fikirka iyaga ay wataan ee gaarka in doorasho ah in la aado ha ogaadeen waqti ay noqoto dalkan in xisbi lagu dooran doono iyagana la xisaabtami doono waqti ala waqtiga noqoto hadal ku sidheeraa maayo madaxba iga dambaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa dalkan iyo qarankan iyo ummadan ha loo tiro dalkan wuxuu u baahan yahay madax ay codkooda ay ku soo doorteen madax codkooda ay ku shaqeeya madax la xisaabtamo madax si dimuqraadi ah ku timaada madaxda kale siyaasiyiinta ee mucaaradka ee nala midkaana waxaan kula talinaynaa in wax allaalay hadallada siiqada la adeegsanayna ay noqoto siiqad ummadda Soomaaliyeed ay soo dhaweynaysa dalkana aan khalkhal gelin karin dibna u keeni karin ummadda maxaa yeelay dalkan mas'uul hore laga soo noqday madax bay ka soo laga soo ahaa muddo ummadda la soo hogaaminayay laakiin maanta in marna carabkoodu qabto wax ummadda iyo bulshada dib u keeni kara runtii wax suurta galaya ma haddii taas ay dhacdana xukunkan bari inay ku soo laabtaan dhici karta iyaga laftigooda u wanaagsanaamaysa sida loogu jawaabo dawladda Soomaaliya waa dawlad federaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan saas uu dastuurka sheegaya waxa la sameeyay guddiyo madax bannaan oo doorashooyinka hogaamiya oo muddo soo shaqeynayay waxa la sameeyay xeer hoosaadkii xisbiyada tilmaamayay oo habkay u shaqeynayaan iyo habkay mataqaana doorashada ugu diyaar garoobaan loo sameeyay waxa la sameeyay hay'ada kale oo runtii kaabaya hawshaas waxyaabo fara badan baa la qabtay haddana saas ay tahay baarlamaanka federaalka wuxuu aad isugu dayay isagoo runtii kaashanaya aragtida xisbiyada inuu mowqifkiisa cadeeyo in dalkan uu u socdo nidaamka xisbiyada badan iyo doorashada qof iyo cod ah annagu haddaan xisbiga cadaaladda iyo midnimada kana mid ah xisbiyada horu socodka oo dhowr iyo 60 gaaraya
waxaan runtii aaminsannahay mabda'a isaga ah in doorasho ay ka dhacdo dalkan qof iyo cod. waxaan aada ugu diidannahay oon marnaba ka soo horjeedna oonan ogolaanaynin sidaan horey wax badan u sheegnay waxa la yidhahda doorasho ku qotonta 4.5. dalkan way soo daashatay, meel xun bay ka tuurtay, way isku dishay, ummadda Soomaaliyeed waa kala geysay, dad bay ka dhigtay 5 ay ka dhigtay, qof bini aadan oo Ilaahay kaamilay ay nus ka dhigtay, bini aadan islaam dad walaalo oo muslimiin oo Soomaali oo siman ay midna waxay tiri 100 baad tahay, midna waxay tiri 50 baad tahay. afkaarta noocaas oo 4.5 la yiraahdo dalkan waa inuu ka guuraa. fikirkaasaan aaminsannahay, cid kasta oo fikirka aaminsanna waa garabsanayna oo waxaan isku nahay coalition baan aanu leenahay. taas waa midda kale waxaan rabnaa halka inaan ka sheegno shirkii ka dhacay 1 iyo 2 iyo 3 magaalada Dhuusamareeb go'aankii ka soo baxay waan soo dhaweynay. waxaan ku sameynay mataqaanaa press release hore oon sameynay ayaan mataqaanaa ayaan ku sheegnay oon ku cadaynay idaacadaha la wadaagnay afkaartaas fikirka aan ka qabno kii baan weli taagannahay. fikirka isaga waan soo dhaweynay, wax alla wixii horu socod ahaa oo meesha lagu gaaray waan soo dhaweynaynaa. wax alla wixii ka soo horjeeda in dalkan uu galo doorasho qof iyo cod ah, ha dheeraato ha dhawaatee doorasho qof iyo cod ah jidkaas isaga ah cid alla ciddii u socota waxaan leenahay soo dhawaada. cid alle cid ka soo horjeedana waxaan leenahay naga raali ahaado haddaan nahay xisbiyada siyaasadda dalka oo aan ka mid nahay coalitionka la yiraahdo midowga xisbiyada siyaasadda qaranka oo dalka dhawaan looga dhawaaqay oo xisbiyo badan ay isugu tageen oo qayb ka nahay. marka waxaan leenahay waa doorasho qof iyo cod ah, afkaarta ummadda Soomaaliyeed maanta ay ku qanci karto. qof kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo inuu wax doorto. waa sida dastuurka qaranka uu sheegay. marka qofka diidan qofka Soomaaliga codkiisa inuu cadeeyo, qofka hogaamin lahaa inuu ama wax hogaamiyo ama la hogaamiyo wuxuu ku cadeyn lahaa, meeshuu ku soo bandhigi lahaa, platformku imaan lahaa. qofka yiraahdo ma imaan kartid, safka soo ma geli kartid, cod ma bixin kartid, xaq uma lihid, waxaan aniga go'aamiyay ayaa shaqeynaya. mabda isaga waan diidanahay. waa mabda aad iyo aad negative u ah, waa mabda dib u socod ah, waa mabda ummadda Soomaaliyeed kala geynaya, waa mabda midnimada ka soo horjeeda, waa mabda garsoorka